bini aadamka meel laga gumaysto caqliga ayaa u daran qofka bini aadamka ah haddii aad xoog ku gumaysato oo jir ahaan aad u gumaysato wuxuu noqdaa mid suga fursadaha uu waqtigu xambaarsan yahay taasi oo u suurtagelin karta in uu iska kaa dhiciyo laakiin haddii aad caqli ahaan u gumaysato wuxuu noqdaa mid ku daba socdo weliba isaga oo ku qanacsan daba socodkaaga. You were concerned because the action was known to you to be illegal. laga soo bilaabo 1960 waxa isu soo tarayay doodaha kulul ee dhaxmara khuburada wax ka qora qaab dhismeedka nidaamka waxbarashada iyo manhajka dugsiyada. arrinka ugu weyn ee murankooda ku salaysnaa waxay ahayd dugsiyadu ma waxay noo leeyihiin waxtar mise waxyeelo. jawaabtu dhanka ay dhacdaba waa mid ay ku baraarugsan yihiin dadyowga daafaha ku dhaqan balse bulshada Soomaaliyeed way ka jiftaa arrinka mana jiro cid isu xilqaantay in ay dadka ku baraarujiso wax aan ka ahayn in fara ku tiris ah. xaqiiqda jirta ayaa ah in arrinku ka qoto dheer yahay sida uu malahu yahay. haddaba dugsiyadu doorka ay ku leeyihiin godobta maxay tahay? ugu horeyn xagee inooga yimid dugsiga aynu ka hadlayno? yaa meesha keenay? maxay tahay ujeeddada laga lahaa? daruusta la barase siday tahay? iyaduna waa su'aal jawaab u baahan. warragan reer galbeedka ah waa raggii shalay ee manaahiijtan qaldan manaahiijtan waalan inoo keenay oo aanba inooga sheekaynayn waxayna taariikhdanadii lama dhigayo jugraafi waa hagardaamadii gumaysiga baabi'intii taariikhda. waxaynu u baahannahay mujtamacu siduu u fakarayo dhan inaynu wax ka bedelno. waxaynu u baahannahay waxaan aynu rumaysannay beentu inay xuntay oo runtu fiicantahay oo cadaaladdu wanaagsantahay oo ammaanadu wanaagsantahay oo salaadu wanaagsantahay oo cibaadadu fiicantahay oo waalidka in la ateeca wanaagsantahay. waxani waa muthal aynu rumaysanno waxyigu inoo sheegay. schooling systemku waa inuu noqdaa mid waxaa soo saaraya laakiin iskuulku hadduu soo saarayo caashaa baaskidka ku ridaya aaminaa badisay faarax Omar ba ka badiyay hadduu caqligu ka yahay nothing waxa soo saari maayo kudaafad kale soo saaraya حتى هذا في إنجليزي تقانا في إنجليزي قد فدا تقانا واحد نقرأ ما جرته مجتمع وخير هذا صوّد ما جرته واحد رادين وحوي ينقف مجتمع وحكة بدله وين أدري الفرق ويدين دي حيا ما دام لبي يطلع سنة سكول كسي سعتي وهذا لبي يبغى أفر سنة كلنا سكول جامعات كسي سعتي وين الدقن كجد سنتين كحراس كأما طادولا لكن هذا لا دقن طاي هذا هو مجتمع سكول سطان ما هاش بدلي cilmigan dib u heega dhaca cilmigan dulka xaadiska cilmigan samadowtarka aqligu ka daboolan yahay bukaankiiyo daafka qaba gumaysigu diin u yahay ilaah lagu diidan yahay islaam la dagaalanka ah danaysigu weel u yahay dirsoocu u aabba yahay daandaansigu guul u yahay dabkiiyo wada hawsarka ah dilkiiyo wada dhigcabka ah duulaankiiyo boobka jecel cilmigan daldaloolka badan damiirku ka maydka yahay khansiirkiiyo duufka cuna dilaalkiiyo tuugka dhala daydaygiiyo jeelka qaba wanaagu ka dayran yahay xumaantu u dooran tahay dadkiiyo simay xoolihii raggiiyo dumarkii furfuray intuu dumarkii isbaday raggii dumar qaar ka dhigay afduubkiiyo qoolka taxan run baa lagu daahayaa dijaal korayaa qarsoon. waxaa maragma doonta ah in ay gabeen siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay xusaan godobta dahsoon ee ujeedooyinka gumaysiga cusub. inta haddii ay dhegta jalaq ku tiri
markan aan kuu baraxtiro ee adiguna dhegta isii markaaga. gumaystuhu markuu dugsiyada furay ujeeddadiisu ma ahayn in uu soo saaro dad aqoon leh ee waxa ay ahayd in ay dugsiyada ka soo baxaan dad jahliga dabray, dhanka kalena mutacallim isu haysta. jahwareerka maanta haysta barbaarta iyo marin habaabinta waa mid ka dhalatay manaahijta dugsiyada. jahwareer waa sii jiray, laakiin jahwareerka xigay wuxuu ahaa midkan aynu hadal hayno, waa dugsiyada iyo jaamacadaha, waayo waxay qofka u qaabeeyaan inuu noqdo mid u hoggaansan nidaamka jira, balse ma ahan mid u diyaariya dhalinta in ay noqdaan dad hal abuur leh. hannaankii iskuuliyadan soo marnay waxyaabihii nagala dagaalamay si indirectia isagoon dee lagu baraarugsanayn waxaa ka mid ah creativity-ga iyo qofku yeedhmada gudeed iyo maaha iskuulka keliya dadkii nagu hareeraysnaa bii'adii aan ku noolayn in ay marar fara badan waalidkeenu xitaa u jeclaan jiray in waxa isaga uu jecel yahay laga yaaba isaga inuu riyadiisii ahayd markii uu yaraa uu doonayo inuu noqdo uu aanu noqon inuu doonayo adiguna ku yidhaahdo noqo waxaa dhakhtar noqo, baylod noqo, injineer noqo, sidii waxyaabihii inta badan inaga laynagu soo koriyey. marin habaabinta waxaa kale oo door ku leh waalidiinta, sababtoo ah marka ubadka yar dugsiga la geen waxaa loo sheegaa in ay tahay waddada keliya ee uu ku noqon kara qof is-anfaca. waxaa loo sheegaa inuu dugsiga ku dadaalo si uu ugu shaqeeyo mushaar fiican. laba mid aynu isla fahanno: barashada aqoonta iyo barashada dugsiga waa laba shay oo midba iskii gaar u taagan. godobtu kama imaan barashada aqoonta ee waxay ka timid nidaamka barashada dugsiyada iyo aqoonta la baro oo ah mid aan doorsaa u weyn ku lahayn halganka nolosha dhabta ah. waxaa ubadka dugsiga lagu baraa taariikhda reer galbeedka, waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan, taasi oo ay ujeeddadu tahay in maskaxda ubadka laga beero sawirka xaqiiqada ah ee waxa ay cid kale aaminsan tahay. waxaa la baraa webigee ayaa Afrika ugu dheer iyo qodobo kale oo aan door ku lahayn kobcinta garaadka iyo maaminta nolosha. manaahijtan qaldan, manaahijtan waalan oo aanba inooga sheekaynayn waxayna taariikhdanadii lama dhigayo jugraafi waa hagardaamadii gumaysiga, baabi'intii taariikhda. waxaa lagu barayaa Notre Dame, waxaa lagu barayaa Tour Eiffel, waxaa lagu barayaa maxay shaariqa, maxay Abu Dhabi, meeqa cimaaray leedahay. intaa kadib waxaa qofka loo sheegaa inuu yahay aqoon-yahan. taasi waxay qofka ka indhasaabtaa inuu arko jahliga dabray ee noloshiisa hore u socodka u diidan. waxaan hore u xusay halkii ay ka timid jahwareerkii soo jiray, tanna waxay ahayd wejiga labaad ee jahwareerka ku habsaday nolosha dhalinta maanta. nolosha waxyaabaha ugu adag waxaa ugu horreeya inuu qofku arko jahliga haysta misna aqbalo. haddaba adiga muuqaalka daawanaya aan su'aalku weydiiye, qof sannado badan lagu ababiyey inuu aqbalo waxa lagu shubo ee magaca aqoonta ka ah, muddo kadib lagu yidhi aqoonba waad dhammaysay, suurtagal ma tahay in qofkaasi si fudud ku arko jahliga uu la daris yahay? jawaabtu waa xaggiina. laakiin dhallinyarada aqoonta lihi waxaa la doonayaa arrimahaas inay u istaagaan. dhallinyaradii aqoonta lahayd qaarkood halkan baa laga haystaayo heeryadii gumaysiga ayaa saaran oo brograamyo kale ay ku brograameysan yihiin. bimacnaa marka aadan u fiirsan ee si cilmiyan aadan wax u raadinin waa dhibaato in wax lagaa raarido. kol walba waxaad eegaysaa buuggii ay soo qoreen nimankii gumaysaha ahaa shalay ee maaragtay na kala faquuqay, buugagtoodii unbaad dib ugu laabanaysaa, ayaad ka dhigatay wax la yidhaahdo marjac ka dhigatay. looma baahna, aqoontaada waa inay shaqaysaa. si dabuubta hadalkaygu u noqota mid ka sii barax tiran sida
aan u dhigay kana waadixsan qisadan gaaban ayaan uga sawir bixinayaa. boqortooyadii la oran jiray maharaja waxay ahayd mid ka talisa cariga hindiya. inkasta oo ay boqortooyadu lahayd ciidan tiro badan, haddana marka la joogo furmaha dagaalka, awoodda ay boqortooyadu adeegsato kuma ekeen ciidan keliya. dhanka kale, maroodiga ay carbisay boqortooyadu waxay ahaayeen awood gaar ah oo door weyn ku leh furmaha dagaalka. nidaamka iyo xeeladaha loo carbiyey maroodiga ay boqortooyadaasu lahayd waa mid dahsoon oo ilaa hadda dadku ay isweydiiyaan. maroodiga ay boqortooyadaasu lahayd waxaa loo tababaray sida ciidanka in ay dagaalka ka qayb galaan. dagaalka ayay geli jireen, cadowga furunta jooga ayay weerari jireen. maroodigu ma ahayn mid ku khaldama ciidanka dhankiisa, wuxuu ahaa mid kala garanaya cadowga iyo ciidanka boqortooyada. dadku ilaa maanta way isweydiiyaan sida lagu suurtageliyey arrinka. dabin markii la joogay waxaa dhammaaday dagaaladii duulaanka boqortooyada iyo halgankii lagula jiray gumaystaha. taariikhdu hadba waa cidda qalinka haysa sida ay doonaan ha u qoraan, balse xaqiiqda jirta ayaa ah in uusan dhammaan gumaysiga, balse waxaa isbedelay xeeladihii uu adeegsan jiray. dagaaladii furmaha waxay isu bedeleen in dadka laga weeraro maskaxda, lana jiheeyo fikirkooda iyo sida ay wax u arkaan. boqortooyadii maharaja ahayd mar kale ayay damacday in ay maroodigii u adeegsato ujeeddo kale. maadaama ay joogsadeen dagaaladii furmaha, boqortooyadu waxay la timid xeelad cusub oo lagu carbiyo maroodiga. markii hore waxaa loo tababaray qaab ciidan si ay uga qayb galaan dagaalada, balse markan waxaa la doonayaa in loo carbiyo qaab suurtageliya ujeeddooyinka gaadiidka sida rarka iyo wixii la mid ah. maroodiyaashii hore ee sii joogay boqortooyada waxay ahaayeen kuwo aan dib loo carbin karin. dhanka kale, maadaama ay da'dooda sii weynaatay, waxay ahaayeen kuwo uu cimrigoodu ku ekaa muddo aan saa u dheereen. sidaa darteed waxaa la bilaabay in la carbiyo maroodiga yar ee dhasha si loogu adeegsado gaadiid ahaan. waxay boqortooyadii bilowday in maroodigii dagaalyaanka ahaa mar kale la carbiyo si looga dhiga dameer rarka la saarto. waxaa la bilaabay in la carbiyo ilmaha yar ee uu dhalo maroodiga dagaalyaanka ah. marka uu dhasho maroodiga yar, maalmaha xiga ayaa la kaxayn jiray, waxaana lagu xiri jiray boodka cidaha dushooda ah, waana looga soo tegi jiray. maroodiga yar wuxuu isku dayi jiray inuu ka baxsado xarigga lugta uga xiran. maadaama uu tabar yar yahayna ma awoodo inuu ka baxsado xarkaha ku xiran. maalmo isdaba joog ah ayaa sidaa loogu xiraa cidaha boodkooda. sidii si la mid ah ayuu maalin walba isku dayayaa inuu ka baxsado xarkaha ku xiran. wuxuu la xarbiyaba ugu dambayn wuxuu aaminaa in uusan ka baxsan karin xarigga ku xiran. maalintaa wixii ka dambeeya, maroodigu wuxuu bilaabaa inuu iska istaago kolka xarigga lagu xiro, una hoggaansamo cidda gacanta ku haysa xarigga hoggaanka ah. wixii uu muddo wakhtigu iskuraba, maroodigu wuu sii koraa. waxaa la bilaabi in loo rarto sida dameerka, isaguna ismoodo dameer rar la saaray. waxaad arki maroodigii oo aad u quwad weyn, haddana meel qura iska taagan, dhanna aan u dhaqaaqayn maadaama xarig yar lugta uga xiran yahay. maroodigu wuu awoodaa inuu ka baxsado xarigga ugu xiran yahay, haddana iskuma dayayo inuu ka baxsado. wuu awoodaa inuu gunta u rajiyo geedka iyo wax walba oo markaa lagu xiray. wuu leeyahay awooddaas, haddana wuxuu aaminsan yahay in uusan ka baxsan karin xarigga ah. xaqiiqda jirta ayaa ah maroodigu in uusan ka xirnayn lugaha, balse uu ka xiran yahay maskaxda. xariggu ma aha mid uga xiran jirka, balse waa mid uga xiran maskaxda. isaga oo yar ayuu ka quustay inuu ka baxsado xarkaha ku xiran. in badan oo inaga mid ah ayaa sida maroodiga oo kale ah. marka xarkaha maskaxda kaaga xiran ay awooddoodu
heerkaa gaarsiisan tahay si walba oo aad dhan kasta uga dheelitiran tahay haddana meel kuma gaarsiiso dhanna uma dhaaftid may raaca ay mareegta kugu xiran tahay maxaa yeelay wax walba oo la xaliyo ama go'aan laga qaadanayo waa natiijo fikirku waa mid ku lamaan tillaabo walba oo uu shakhsigu qaadayo hab fikirka wanaagsan wuxuu aas-aas u yahay kobaca nolosha wuxuu shakhsigu u horseedaa karti maxaa yeelay hab fikirku wuxuu saamayn ku keenaa shakhsiyaddaada tamartaada iyo firfircoonidaada ugu dambayn ka dhallinyaro ahaan maanta maxaa la gudboon maxaa dhayi kara mahadhada ku beeran ee dhabannaxayska biday